kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga dawanaysaan kusoo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door koranaya waxa kamid ah Soomaalida lagu xiray Zambia oo la sii daayay taliyaha ciidanka booliska oo kormeeray hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka kursiga ay isku hayaan Xaaf iyo Qaybdeed madaxweynaha Koonfur Galbeed oo bilaabay kulamo looga hadlayo go'doominta shabaab ee xudur maraakib shisheeye oo kalluumaysi sharci darro ah ka wada badda Soomaaliya qorqor oo booqday xariyaha ciidanka ee Gurceel Sacuudi Carabiya oo qaaday tallaabo xasaasi ah kadib hadalkii George Cordia daawadadan cusubtan ugu soo biir subscribe saarka markana fur si aad u jiddo wararkii ugu dambeeyay halka soo dhigno maalinimo Sabtida taariikhda ay ku beegantay 7 bisha October 2022 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale dhameystiran ayna ku bilaawna dawladda Zambia ayaa dib xorriyadooda u siisay qaar ka mid ah Soomaalida saacadihii la soo dhaafay lagu xirxiray gudaha dalkaasi gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia Maxamuud Maxamed Xasan oo waramayay BBC-da ayaa sheegay in inta badan la sii daayay muwaadiniintii Soomaaliyeed ee saacadihii la soo dhaafay lagu qabqabtay howlgal ka dhacay gudaha magaalada Ndola Maxamuud ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid kadis ah oo laga sameeyay xaafadda ay u badan tahay Soomaalida wuxuuna xusay in aan horey loo siin wax degniin ah sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in wali ay xiran yihiin Soomaali kale oo ganacsato ah isla markaana gaariya ilaa 50 ruux balse loo reebtay sharciga oo ka dhacay awgiis jeelada Soomaaliyeed ee Zambia ayuu xusay in haatan ay wado dadaalo dheeraad ah oo lagu soo deynayo dadkaasi iyaga oo u maraya wada hadallo dhanka dawladda ah hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dawladda Soomaaliya si kulul uga hadashay xariga muwaadiniinteeda lagula kacay sidoo kalena cambaareen u jeedisay dawladda Zambia taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa maanta kormeeray hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da qaybihiisa kala duwan taliyaha ayaa warbixin ku saabsan habsami socodka shaqada hay'adani u hayso bulshada ka dhageystay hoggaanka CID-da waxaana uu kula dardaarmay in la laba jibaaro shaqada qaranka qaar ka mid ah odayaasha beelaha Sacad oo kulan ku yeeshay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa ka digay in ay kuraasta Galmudug ee ka dhiman aqalka sare loo xiro cid gaar ah odayaasha ayaa waxa madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ka dalbaday in kuraasta ku dhiman maamulka Galmudug ee aqalka sare laga dhigo kuwa furan si looga baaqsado dib u dhac iyo dagaal sidoo kale waxay sheegeen in kursiga ay xaq u leeyihiin beesha reer odow isla markaana ay sanadkan iyaga xaq u leeyihiin sidaas daraadeedna aysan aqbali doonin in cid gaar ah loo xiro ugu dambeyntiina waxay odayaasha dhaqanka dalbadeen in si furan u tartamaan musharaxiinta kursigaas si looga baaqsado xaalado dagaal isla markaana lagu kala calaf qaado si xor iyo xalaal ah kursigan ayaa waxaa ku hardamaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo horey digniin ulus u jeediyay iyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdeed oo haatan ku sugan jiid dagaalka isaga oo doonaya in uu difaacdo kursigiisa madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Xudur ku qaabilay ururada haweenka gobolka Bakool oo ka dhageystay baahiyaha ay qabaan iyo ka qayb qaadashada horumarka gobolka iyo xaqiijinta amniga madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sidoo kale kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ururada haweenka gobolka Bakool ee ka qayb galay kulanka ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay doorka haweenka ee ka qayb qaadashada amniga iyo horumarka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa haweenka gobolka Bakool ugu mahadceliyay dagaalkooda ku aadan dawlad iska iyo ka shaqaynta amniga waxa uu sidoo kale sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii go'doonka looga qaadi lahaa magaalada Xudur madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa xalay qasriga madaxtooyada degmada Xudur ku waday kulamo kala duwan oo uu la qaadanayay bulshada iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka qaar ka mid ah kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ka jalaabta xeebaha bariga Mudug ayaa cabasho ka muujiyay koorka maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah ugu kalluumaysata biyaha badda ee dalka Aamin Saciid Aadan oo ka mid ah kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha degmada Hobyo ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in maalmihii u dambeeyay ay soo bixiyeen qayladaan ku aadan maraakiib shisheeye oo sida sharci darro ah
ugu kalluumaysanaya xeebaha bariga gobolka Mudug. Kalluumaysatada gobolka Mudug ayaa sheegay in kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka jira badda Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen nolosha kumanaan qoys oo ku tiirsanaa wax soo saarka badda. Qaar ka mid ah kalluumaysatada Soomaalida ayaa fikrad ahaan qaba in haddii aan si degdeg ah wax looga qaban kalluumaysiga sharci darrada ah ee maraakiibta shisheeye ay dhalin karaan shaqo la'aan ku timaada kalluumaysatada. Sidoo kale kalluumaysatada Soomaalida ayaa tilmaamay in ay ka cabsi qabaan hoos u dhac dhinaca la xiriira kheyraadka badda iyo bulshada kalluumaysatada ah ka barakacda deegaanada xeebaha ee dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa shalay booqasho iyo kormeer ku tagay xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee dowladda degmada Guriceel. Madaxweynaha oo ay weheliyaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada u jeediyey kelmado isugu jiray dhiirigelin iyo bogaadin. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ku ammaanay ciidanka qalabka sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda iyo markastana ugu taagan yihiin difaaca ummadda Soomaaliyeed. Sacuudi Carabiya ayaa jimcihii ku amartay safiirka Lubnaan in uu dalkeeda ugu baxo 48 saac gudahood, waxayna joojisay dhammaan badeecadihii dalkaas loogu soo dhoofin jiray. Boqortooyada ayaa ka carootay hadal uu sheegay wasiirka warfaafinta Lubnaan George Kurdahay oo dalka Yemen ku qeexay gardarada Sacuudiga. Saacado kadib boqortooyada Bahrain ayaa amartay safiirka Lubnaan in uu dalkeeda ugu baxo 2 maalmood gudahood sabab la mid ah tan Sacuudiga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Lubnaan ayaa ka wada hadlay go'aanka Sacuudiga, waxayna weydiisteen wasiirka warfaafinta in uu qaato go'aan ku habboon oo u muuqda in loogu baaqayo in uu is-casilo iyada oo la rajaynayo in ay xiisad qaboojiso. Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa warbixinteeda ku dartay in sidoo kale safiirka boqortooyada ee Beirut loogu yeeray in uu dalkiisa ku soo laabto. Warbixinta ayaa sheegtay in tallaabadan aysan saameyn doonin kumanaan qof oo reer Lubnaan ah oo ku nool kana shaqaysta Sacuudiga. Go'aanka Sacuudiga ay ku mamnuuceen badeecadaha ugu yimaada Lubnaan ayaa imaanaya xilli dalkaas uu u baahan yahay lacagta dibadda maadaama uu ku jiro xaalad dhaqaale oo aad u xun. Tan iyo 2019 lacagta ganiga Lubnaan ayaa lumisay 90% qiimaheeda, waxaana kumanaan qof ay wajahayaan shaqo la'aan iyo saboolnimo. Kurdahay ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in Xuutiyiinta ay Iiraan taageerto ay naftooda ka difaacayaan gardarro ugu timid dibadda, isaga oo intaasi ku daray in ay xulafada Sacuudiga ay duqeeyeen guryo, xaafado, tacsiyo iyo xaflado aroos ah ka jirtay. Waxa uu sidoo kale dagaalka Yemen ee socda 7 sano ugu yeeray macno daro, isaga oo sheegay in la joogo waqtigii la dhammayn lahaa. Ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najib Mikati ayaa sheegay in uu ka xun yahay tallaabada Sacuudiga, wuxuuna ugu baaqay boqortooyada inay dib u eegto go'aankeeda. Waxa uu intaasi ku daray in tan iyo markii uu noqday wasiir uu u hoggaansamayo siyaasadda dowladda ee aanu muujinayn aragtidiisa. intaas ayaan ku soo afbeerin markaad kala socotaan Samareeb TV. inta warkan war lamadan kuma doono waxaan idinkaga tagnaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.